kulanti wacan daawada halkan waa barteena YouTube-ka halbeega wararka qodobada wararka aanu xilligan idiin hayno waxaa kamid ah digniin cusub ayaa la soo saaray khatar amni iyo weeraro Muqdisho ku soo wajahan ayaa laga digayaa kadib qaraxyadii Zobe 29 Oktoobar waxa isa soo taraya digniinaha dhanka ammaanka ah ee loo jeedinayo ganacsatada iyo dadka reer Muqdisho qodobada wararka ee sidoo kale daawan doontaan waxaa kamid noqonaya kadib digniintii ka soo baxday dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa foojignaan iyo heegan dhanka ammaanka ah laga dareemayaa qaar kamid ah xarumaha dawladeed ee ku yaala magaalada Muqdisho waxa heegan buuxa la geliyay ciidanka ilaalada ka ah safaaradda dowladda Turkiga ee Soomaaliya taasi oo ku taala agagaarka xeebta Liido degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho isbeddelka dhanka ammaanka ah ee laga dareemayo safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaanu idiin soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud ee caasimadda haddii aad nagu cusubtahay nagu soo bir adigoo barteena YouTube ee halbeega wararka subscribe gareynaya isla markaana muuqaalka like saaray una share gareynaya saaxiibada si uu dad badan u gaaro mahadsanid waa hagaag daawada ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno ciidamo badan ayaa lagu soo daadiyay qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana ujeedka ciidankan loo soo daadiyay uu yahay cabsi amni oo laga dareemayo magaalada Muqdisho sida ay ku waramayaan xilwareedyo dhanka ammaanka ah ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa heegan la geliyay kadib markii laga warhelay in ciidanka booliska calaamadooda gaari uu ku buufsan yahay al-shabaab qorsheeyeen inay weerar kaga fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho ciidamo badan ayaa la soo dhigay qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo la wargeliyay xog sirdoonku uu helay oo ah in al-shabaab ay qorsheeyeen inay fuliyaan weerar iyagoo adeegsanaya gaari sita ama ay ku buufsan tahay calaamadda ciidamada booliska Soomaaliya qaar kamid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa loogu baaqay inay guryahooda ku nagaadaan oo aysan tagin goobaha la isugu yimaado ee dadweynaha si loo yareeyo haddii weerarkaas uu dhaco khasaaraha saraakiisha dhanka ammaanka ah ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan xogta sirdoon oo ay heleen iyo gaariga la sheegay in qaraxa la rabo in lagu buufiyay calaamadda booliska Soomaaliya kaasi oo ay ku adeegsadaan ciidamada booliska kooxda al-shabaab ayaa khasaare xooggan waxa ay kala kulmeen dagaalada ka socda qaar kamid ah gobolada dalka iyagoo deegaano dhowr ah gacantooda laga saaray tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada ka socda qaybo kamid ah gobolada dalka al-shabaab ayaa culeys badan waxa ay soo saareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo weeraro isxigxigay iyo dilal qorsheysan ka fuliyay magaalada Muqdisho dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin dhanka ammaanka ah iyadoo markaa ganacsatada iyo dadka shacabka ahba uga digtay inay sameeyaan foojignaan dhanka amniga ah isla markaana ay amnigooda ka taxadaraan warka qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu qornaa ciidanka qaranka iyo shacabka oo isgarabsanaya ayaa si xawli ah guulo uga gaaraya dagaalka lagula jiro khawaarijta argagixisada ah toddobaadkan waxa ciidanka qaranka iyo shacabka ay guuldarooyin waaweyn ku huwiyeen cadawga deegaanadii lagu dagaalamay ee Galmudug iyo Hirshabeelle waxaana la dilay in ka badan 200 oo khawaarij ah ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxa ay bogaadinaysaa shacabka oo markii ay garwaaqsadeen hagardaamada khawaarijta si buuxda u garab istaagay ciidanka qaranka kuna biiray dagaalka lagu cirib tiray khawaarijta ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay dowladda Soomaaliya khawaarijta oo ku jira xaalad naflacaari ah ayaa waxa ay weli faraha kula jiraan fal dambiyeedyo ay kamid yihiin dilalka dadka shacabka ah burburinta kaabayaasha dhaqaalaha sida ceelasha beeraha buundooyinka wadooyinka iyo wixii la mid ah dowladda Soomaaliya iyo laamaha amniga qaranka oo gudanaya waajibaadkooda sugidda amniga iyo difaaca shacabka ayaa waxa ka go'an inay ciqaab kulul marsiyaan cadawga khawaarijta ah ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya dhanka kale dowladda Soomaaliya waxa ay faraysaa shacabka inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga hortago dhagarta cadawga xogaha sirdoonka ee la socodka dhaqdhaqaaqa khawaarijta ayaa la kordhiyay si looga hortago tallaabo kasta oo ay ku doonayaan inay shacabka ku waxyeeleeyaan ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ay soo saartay dowladda Soomaaliya qodobada sidoo kale war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay waxaa kamid ahaa in shacabku ay muujiyaan feejignaan guud gaar ahaan inta uu socdo howlgalka lagu beegsanayo ururka al-shabaab si gaar ah dowladdu waxa ay milkiilayaasha hoteelada maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga ugu soo jeedisay inay muujiyaan taxadar dheeraad ah muwaadiniinta ayaa waxaa loo jeediyay dhankooda inay si taxadar leh xaaladda ula socdaan isla markaana ay yareeyaan tagista laga maarmi karo ee goobaha ay dadku isugu yimaadaan waxaa la xasuusinayaa milkiilayaasha guryaha hoteelada garaashada iyo goobaha kaleba inay il gaar ah ku hayaan ciddii aragta ficillo shaki lehna waxaa laga codsaday inay si degdeg ah ugu wargeliyaan laamaha amniga ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ciidamada amnigu ay ka go'an tahay inay sii wadaan howlgallo qorsheysan oo ay sheegtay in lagu burburinayo goobaha al-shabaab ee ku dhuumaleystaan sidaas darteedna waxaan codsanaynaa in shacabku ay muujiyaan dulqaad ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya
dhawaanahan waxaa kordhay beegsiga al-shabaab ee magaalada muqdisho kadib dagaallo qaraar oo ka dhacay qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin deegaanada maamulka Hirshabelle iyo kuwa Galmudug. Wahagaag daawadayaal, markana waxaa foojignaan iyo taxadar dheeri ah oo dhanka amniga ah laga dareemayaa xarunta safaaradda dowladda Turkigu ay ku leedahay magaalada Muqdisho. ciidamo badan oo kuwa amniga ah ayaa lagu arkayaa xarunta safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ku taala wadada degmada Cabdicasiis dhanka xeebta Lido. ciidamadan dheeriga ah oo wata dabaabaadka dagaalka ayaa waxa ay jareen qaar ka mid ah wadooyinka gala safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxaana ay sameynayaan taxadir iyo foojignaan dhanka amniga ah iyagoo dadka iyo gaadiidkaba ku amraya inay si taxadar leh ku maraan wadada. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhawaan waxa ay soo saartay digniin dhanka amniga ah iyadoo markaa ku boorisay goobaha bartilmaameedka noqon kara inay sameeyaan foojignaan dhanka amniga ah. warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ururka al-shabaab ay qorsheynayaan inay fuliyaan weeraro toos ah iyagoo markaa adeegsanaya gaadiid kuwa dowladda ay isticmaalaan, gaar ahaan gaadiidka u eg kuwa ciidamada booliska Soomaaliya. ilo dhanka ammaanka ah ayaa waxay ku waramayaan in al-shabaab ay qorsheeyeen in gaari ay ku buufsan tahay sumadda ciidanka booliska Soomaaliya ay ku bartilmaameedsadaan meelaha ay markaa isleeyihiin waa ay weerari karaan isla markaana noqon kara bartilmaameedka. safaaradda dowladda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa foojignaan dhanka amniga ah, waxaana wadooyinka soo gala safaaradda la soo dhigay beebayaasha dagaalka oo isticmaalaan ciidamada Turkiga ee ilaalada ka ah safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho. sidoo kale ciidanka Soomaalida ah ee qayb ka ah amniga safaaradda ayaa waxay sameynayaan foojignaan dheeri ah iyaga oo wadooyinka qaar ee soo gala safaaradda amnigeeda ka qayb qaadanaya. dowladda Turkiga ayaa waxa ay qayb ka tahay dowladaha dagaalka ka taageera Soomaaliya, waxaana ciidamada Gorgor iyo sidoo kale Haramcad oo ay tababareen dowladda Turkiga ay qayb ka yihiin weerarada ka socda qaar ka mid ah deegaanada gobolada dalka oo ay al-shabaab khasaare xooggan kala kulmeen. sidoo kale dowladda Turkiga ayaa si toos ah ugu birtay dagaalka lagula jiro al-shabaab kadib markii diyaaradaha dagaalka droniska Turkiga ee Bayraktar TB2 ay ka qayb qaateen weeraro toos ah oo ay ku bartilmaameedsadeen fariisimo ay lahaayeen ururka al-shabaab, kuwaasi oo khasaare xooggan ay kala kulmeen. xogaha dhanka sirdoonka ee la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay beegsan karaan goobaha ay ku badan yihiin muwaadiniinta Turkiga iyaga oo ka jawaabaya weerarada diyaaradaha droniska Turkigu ay ka fuliyaan qaybo ka mid ah gobolada iyo deegaanada ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab. dowladda Turkiga ayaa garab iyo gaashaan buuxa u noqotay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyagoo ka gacan siinaya markan howlgallada tooska ah oo ay dadka deegaanka is abaabulay iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay kula jiraan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab. dowladda Turkiga ayaa waxa ay markaa saanad ciidan iyo hub iyo tababarba waxay markii hore ku taageeri jirtay dowladda federaalk ah ee Soomaaliya, waxaana markii dambe ama bilihii ugu dambeeyay ay qayb ka noqotay si toos ah dagaalka ka socda gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo ay diyaaradaha dagaalka droniska Turkigu ee Bayraktar TB2 ay ka dhigeen wacdaro xooggan iyaga oo duqeymo xooggan la beegsaday fariisimaha kooxda al-shabaab iyo goobo ay markaa ka sameynayeen abaabul, iyagoo sidoo kale ka soo muuqday muuqaallo ay duubeen droniska kaasi oo lagu bartilmaameedsanayo ama lagu burburinayo gaadiid ay la socdaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale kuwa ay u diyaariyeen inay ku qarxiyaan goobaha ay fariisimaha ku leeyihiin ciidamada isgarabsanaya. dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay digniin dhanka amniga ah, waxaana safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ay noqonaysaa goobtii ugu horeysay ama xarun dowladeed tii ugu horeysay ee sameysa foojignaan dhanka amniga isla markaana qaadata digniinta ka soo baxday dowladda Soomaaliya. goor sii horeysay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxay adkeeyeen amniga isbitaalka Erdogan ee Digfer ee magaalada Muqdisho, halkaas oo la sheegay inuu noqon karo bartilmaameed isla markaana ay ka howlgalaan dhaqaatiir Turki ah. wararkii ugu dambeeyay oo aad xilligan kala socoteen baraheena internetka gaar ahaan YouTube-keena halbeega wararka waanaga inta haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro subscribe inoo saar adigoo muuqaalka la wadaagaya saaxiibada si uu dad badan u gaaro. mahadsanid.